adaa aysan adigii baa leh hebel anuu yaqaanaay muxuu yahay anuu yaqaanaay muxuu yahay hebel. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا صومال محمد يندمان أفضل بولو قد أنكو هذا لا يفهم معي والسلام سيدي هاي ملفي عني هاي ملفايا حالة دينا أنا أدبان وعاف ما تقوى ما شاء الله الحمد لله على كل نعمة أدان نقول سبته لو سلو جانك سبسكرايب صار لايك تا دعكسي معناها لايك وحاجة دي أنت you are the best. commentigana the king is king igu soo qor bacbacna soo raacay dad duuti soo dhawaada barnaamijkan daah inoo qaado barnaamijkan dabka inoo saana saatiisa ku soo aragto waay intaan adiga lagu yeesin intaan lagu yeesin adigu has yeesin intuu qof kale ku yeesin adu has yeesin horta oo macnaheedu ah haddaad adigu waxba iska soo qaadi weydid qof kale inuu wax ka soo qaado weliga ha sugin Soomaali waxay dhahdaa afkaaga ama maxaa la dhahaa ammaan afkaaga kaga muhrin sax macnaha saamaanino waxay aan ahay oo faraha iska siisaan laakiin horta sidoo ilaahay ku karaameeyay wala qad karabna ibnaado sidoo ilaahay ku karaameeyay waxaan kale ilaahay wuxuu abuuro dhanbu qofka adiga in daawanay ka karaameeyo ibnaadan ka dhigay sax adigu marka haasiyasin qof kale oo caalamka ula nool oo saado imatay adduunkan si isku mid oo baa loo yimid alool hooyo baa laga soo wada galay alool hooyo baa laga soo wada baxay sax inkastoo imika baarmisi alaabo iska jiraan waxaasna waa adu amarka ilaahay ku suurta gashay waa sabab halkii aad soo marnay meel mid inuu soo maran beelata qaabkii lagu abuuraadi baa loo abuuray isaga marka qof adiga amal loo abuuray adiga ha isku jeesin isaga dirti adoo leh isaga sharaftiisa meel uga dhac asaga baabi asaga yani horumarkiisa dil adoo sile adoo dariiqyo kale heli kara oo qofkaas waxba u jiidiyata jirinu ka sitay adoo helaya dariiqyo kale oo qofkaas aad saad ugu hoos ugu dhigi lahayd ba aad karaysid laakiin adigu naftaada hoos ugu dhig intaad rabtid qof kale hoos u dhig au dhigti isleeda adu naftaada hoos u dhigin mesela saalan ku soo qaadanay hadda waxa jira adigana daawan inaad ka mid tahay I don't know ma garan kari laakiin haddaad ka mid tahay walaal isqabo intay goortayn isgaad teamkana ka bax ka xorob wallahi ka xorob waayo ma fiicna adiga isyaasay macna qof kale hadda adiga maana wax ku sheegaya kii la yeesayma tusaale waxa ugu horeeya مثلا واحد تري قف عن أما فنان أحده أما فنانة أحده أما يوتيوبر أو the any person or famous بعد صاحبتين واسلة كلنتين أما شقاتكم كلنتين واسلة شقيسين كافتيريا دور حبين سكنا كلنتين نتكو عويسين واسبرتين برش هاي كيني عبرت markaas ka bacdi asagoo maqan dadka loo hadal hayo qofkii aad la kulmi jirtay ama shaqo wadaagaada ahaydeen ama aad siyaabo kale isku barateen markaas soo hadal qaaday dadkii kale ay kor u qaadeen ay leeyihiin yaani hebel san waay hebel kan waay adihin adigu dad baa jira la soo booday isla markaa warmakanaad waxay ga dhigaysaan anu ila shaqeeyay anigu ila shaqeeyay makan baad wax iga dhigaysaan macnaha hadii lagula shaqeeyo waxba ma ahmiya hadii lagula shaqeeyo adiga kula shaqeeyo ama anu ila shaqeeyay ama anu habeen hore halkan qaxoodii nation oo cafeteria ila fadhiyo ila caawinay macnaha hadii lagula fadhiyo waxba lama ahmiya hadii zero baad kula fadhiisana zero buu noqonaa sif maxaa la dhahaa sifra noqon miya yani zero aad ka sii hooseysaa adigi isagii zero baad ka dhigtay Soomaa adiguna zero kala tahay zero ma buu noqon zero wax ka hooseeya ma jiray zero wax la yaqaan ma tiid macna marka intaad qof kale leedahay sharaftiisa hoos u dhig ama sumcadiisa dil adigu taada waxba ha ka soo wax yahay ha ka dhig
qofkii yaa la hadal hayayo wuxuu leeyahay warkaas niyo aniga habeen horaan qaxoodan meeshan oo cafeteria isla fadhinay markaas wax muxuu yahay maxay tahay wuxuu yahay macnaheega taas aan ka moodin inuu ka karaamo badan yahay inuu ka sharaf badan yahay ما waa kula karaamo waa kula sharaf saad adduunkan u imato yimid 9 bilood caloosha lagu siday hooyana soo shisay waa tabtaad ku imata adduunku ku yimid isaguna laakiin adigu as hoos marin kaliya wuxuu ku dheeriyaa inuu yaana numberska dadka ku yaqaan aw ka numbers badan yahay oo dad adigu aqoon isaga yaqaanin oo ka caansi ka magac dheeri intaas mooyaan wax kale ku dheeriyaa male isku mid baatiin inuu dadaal sameeyay inuu talent ilaahay siiyay oo magac ku sameeyay macquul waay laakiin kaama qiimo badna kaama karaamo badna adii isaga ilaahay waa u simantii imika adii isagu ilaahay waa u simantii hadhow aakhira marka la tago midkii labadiinan aad isaga iska koreysinaysid labadiinan midkii aakhira shaqaystay baa ilaahay hortiisa ilaahay horta naga yeelo kuwii wajiga ilaahay ku hungoobin ku faa'iiday Allah naga dhigo dhamaantiin laakiin markaas ba la kala sareeyaa maayna hadda adduunka ay ibnaadanku waa ama cadaanaha ama cawlaanaha ama kalaraan la qoon hataa waxa doonaa ya adduunkan ibnaadanku ku nool waa sameeyay illa kii isagu hoos isku dhigan maahane qof ka sareeya caalamka kuma noolo war adiga sharaftaada ilaasan kara adiga naftaada meel sare geersiin kara adiga aan iska dhigi karo qof nool ilaahay waa ka dhigay qof laakiin adiguna qofnimadaada hoos ha u dhigi macnaha hebel anaga isnaqaanay muxuu yahay marka hadaad adigu isaga istaqaanin marka adigu waxa ma tihiin miya marka hadaad isaga waxa ugu filan sharaf dhac inuu adigu barto macna way jiraan dad inaad iyaga baratid ay sharaf dhac ugu filan wallahi way jiraan dad inaad iyaga la jaan qaadid inaad la saaxiibtid ay kugu dhan tahay inaad adigu zero noqotid marka adigu noocaas ha noqon noocaas ha iska dhigin qof oo isaga hadii la barto adduunka dhan ibr laga noqonayo noqo qof kan magac dheer leh qof uu bartay qof weyn inaad tahay macnaha qof aan ay bartay qof aan saaxiib lahayn intaas ku faan adigu kor isku qaad hoos ha isku dhigin wala adigu hoos ha isku dhigin hasdihin hebel baan hebel aanu yaqaanay muxuu yahay anaga isnaqaanay muxuu yahay halkan buu ila marayay muxuu yahay يا markaas maxaa isku reebtay maxaa reebtay markaa adigiiba dhulka isla jaray ani ma ka qaadaydi anoo si dul maray adaab dhulka sidii adaas salaxay maxaa aniga il wareeriyo culayskaaga dhulka ka qaaday war sidan ma ahani war haddaan ku leeyahay walaal adigu isku horseedin in lagu yeeso in dadku ka faanaan asku horseedin adigu yaana hormoodka ha noqonin sharaf dhacaga qofka u horeeyay sharaftaada dil adigu ha noqon habadaas waa ugu muhiimsan badi wax kale oo tusaale oo loo soo qaadan karo male heblaayada caanka fanaanada hebel ma ama tiktoker ama youtuber warkaas anaga sanaqaan halkan buu maray cirka ma mari laay cirka ma salaanyal dhulka cirka ma meel mar ma jirto halkan aduu mareen halkan buu maraa maalin kasta ku hoyday muxuu yahay marka de waa ibn aadan adigu kula mid waa dadaalayne magac buu yeeshay laakiin inuu halkan mar ma sharaftiisa ku dhimatay adoo wadada kala mar oo arki weydid waad raadinaysaa dadka waa badan yihiin noocaas waa nooca ugu raadista badan dadka caanka way raadiyaan bas wuxuu u raadinay wax kale ma waa inuu raado war kan anaga sanaqaanay muxuu yahay war kalmadaas ani dhowr jeer bay u soo noqotaa marka waan ka biyadiiday macnaha fito waa taas waa fito qayaxan waa codkii oo kii u dambeeyay ku dhufta xataa kalmadaas waan diiday haddaad adu nooca tahay walaal iska jir hadhow waa dhihi meel baan tagayo
hebel baa islaam waayo oo yeesay war adaaba yeesnaaye oo hebel baa iga sareeyay war adduunka qof ka sareey ma laha adduunka qof ka sareey ma leh waxa dadaal u baaris dhaafiyay maan qof ka sareeya oo ka karaan badan ma jiro ilaahay waa loo sameeyay marka adigu kor isku qaad qof kale kor ma ku qaadayo laakiin adigu kor isku qaad oo iska dhig qof nool ilaahay waa ka nafku galiyay oo adigan hadla ee cuna ee xaasidnimadaba garanay cagsiga taas wajigeyga garo inaad adu kor isku qaadid intaad qofka kale dil leedahay adu hays dil walaal intaad qofka kale intaad sharaftiisa dil leedahay adigu afkaaga ha isku dil tusaale kale oo soo qaadan kara ma jiray ya tusaale kale oo kaas ka dhow oo soo qaadan karaya barnaamijkan macnaha hadalkina si badan ma rabi hadalku wixii muhiimada in laga hadlo ma qurux badan soo marka hebel muxuu yahay anaga sanaqaanay fanaankan xaafideen u gali jiray muxuu yahay dad u gali jiray u dadaalo oo ka tagay xaafidina mooy meel u gala hadda anaga weydiinay ku gala hadda mooy waa dadaalay waa ka talaabsaday adigina intaad qof adaabda sharaftaada waa dadka kale xasid kama hadlayna maanta waxaan ka hadlaynaa dadka oo sharaftooda iyagu dila adiga sharaftaada dilay tumba maahine saafa qorto ugu goosay inta leedahay qof kale warkan muxuu inta asagana ay istarafto soo adaa yeesan adigi baa leh hebel anu yaqaanay muxuu yahay hebel anu ila shaqeeyay hebel muxuu yahay horta shaqo waa sharaf shaqo kasta wax oo fanaan wuxuu doono ka shaqeyn karaa qof aan wuxuu doono ka shaqeyn karaa macnaha shaqo wax la isku caaymo laakiin hebel anu ila shaqeeyay muxuu yahay hebel anugu qaxood ila fadhiyay muxuu yahay isagu wuxuu yahay waa yahay adigan hadal haye adigu tiisheenta daawac leedahay taada hadil waxa ka sii badan oo ka yiraahdo ma qani inta kale idinkan idin deynaya insha Allah barnaamijka ka xigeenta ku kulmi doono waxa idinkaga tagaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh